madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey wasiiradii hore ee arrimaha bulshada Soomaaliya Marwo Maryam Qaasim iyo madaxa barnaamijka Karma ee ka hortagga umur-raaca hooyooyinka ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xuseeyay sanad guuradii labaad ee markii uu hirgalay dhaqangalka barnaamijka Karma oo ah barnaamij looga hortagayo dhimashada hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa muddooyinkii dambe socday ifafaalo looga hortagayo dhimashada hooyada umur-raacda. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, madaxa Karma ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxa Karma Puntland, mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah, bahda caafimaadka iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Inta uu socday ayaa munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay hadallo iyo sidoo kale suugaan ku aadan sidii looga hortagi lahaa umur-raaca. Ambassador-ka barnaamijka Karma ee Puntland Alisa Cabdiqaadir Xaaji Muumin ayaa ugu horreyn ka warbixisay xaaladaha guud ee hooyada iyo dhallaanka. Ka Puntland ahaan waxaan oran karnaa Karma maadaama November 17 sanadkii horeeto la daafuray shaqo badan baynu qabanay. Aniga ka danjiro ahaan ka sokoona wasaaradda caafimaadka haddii shaqaalaheeda aysan qorshayn lahayn, isku dubaridi lahayn, abaabuli lahayn, hagi lahayn barnaamijyadan loogu talagalay in lagu wacyigeliyo, lagu kobciyo xarumaha caafimaadka, la booqdo meelaha aan caafimaadka ka jirin, dadkii la gaarsiiyo iyadoo caqabado badan ay jiraan. waxaan oran karnaa runtii kumanaanka haween oo la wacyigeliyey oo la baray sida isku daryeeli lahayn markay uurka leedahay hooyada, markii ay dhasho iyo kadibba, iyo haweenkii la tababaray ee ama ha noqoto muliso ama ha noqoto kalkaalise ee loo diyaariyey inay hawsha ka qayb qaataan. baa hal sano gudaheeda waxa la gaaray baa aad iyo aad wax u weyna oo aad u qurux badan. waxaanu leenahay ilaahay baa mahadaale. barnaamijkan waa barnaamij aad u weyn weeyaan intii ugu horreysay ay ka dhawaajisay inagoo dhan waa mas'uuliyadna wada saaran inaan ahmiyad gaar siino hooyada iyo dhallaanka, inaan la kaashano dhaqaatiirta mar walba ku howlan habeen iyo maalinba badbaadinta hooyada iyo dhallaanka. wasiiradii hore ee arrimaha bulshada Soomaaliya ahna madaxa barnaamijka Karma ayaa waxa ay bulshada ugu baaqday inay iska kaashadaan sidii kor loogu qaadi lahaa in la helo hooyo caafimaad qabta, waxayna hooyooyinka ka codsatay inay ilaaliyaan caafimaadkooda isla markaasna ay tagaan goobaha caafimaadka. marka dawladda waxaan ku soo jeedinayaa marka miisaaniyadda la dejinayo kale wasaaradda caafimaadka budgetkeeda inuu noqdo budgetyaalka ugu muhiimsan. waxaan anigaa sameynay marka dadka lacagta leh waxay sameyn karaan isbitaaladan dayacan gabdhaha isku dhimanay xataa ugu magac darayaka. marka dadkeennii waxa dhimanaya waa hooyada, waa walaasha, ruux kalamaha waa xaaskaaga. dadkeennii inay u istaagaan dadka ilaahay xoolaha siiyey, culimadana inay rool ka qaadata, sakada in lagu bixiyo, sakada waa ku baxaysaa hooyo dhimanaysa in la badbaadiyo. iyagaa lehay gacan shisheeya waxba laga sugay. nin jooga London ama jooga Stockholm oo taxi payer canshuur laga qaaday in lagu deeqa donors UNFPA loo soo dhiiba la keena. waxaa ka muhiimsan shirkadaha Garowe jooga inay lacagta bixiyaan. madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku faraxsan yahay in guulo laga gaaro barnaamijka Karma ama daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo goobo badan haatan lagu soo kordhiyay laguna xanaaneynayo hooyada iyo dhallaanka deegaanada Puntland. intii ka dambeysayna waxaan ka warhayaa 4 xarumood in la qabtay oo si wanaagsan mashruucan ay u socdo. waxaan dareemayaa wali oraahdii ahayd hal la gaari waaga dhulka fogfog wali waxaad moodaa inaanay u dhacsanayn hawsha iyada hay'adahan UNHCR. Puntland qofka reer Puntland wuxuu la xuquuq yahay kalaamiga degan ama Garowe oo caasimadda Puntland runtii iyo maanta ka jooga alowla waa isku mid ama tawfiiq ama saaxo meel kasta oo Puntland ku taalo qofkaas uu la xuquuq waana isku baahi. waxaa loo baahan yahay sidii dawladdu ay markii horeba ugu sheegtay
idinkoo aan idinka mahad celinayo waxqabadkiinii sanadkii aynu soo dhaafnay iyo dadaalkiin haddana waxay la tahay hawshu waa barti hawl kama daali weli waa hogadi waxaad moodaa tii aynu ka bilownay baynu weli taagan خضراء محمد فارح كلسن تيفي قروة